esta casa, sino llanto, los gritos, los ruidos de waa Oska hooyadii Rosa oo joogta gurigooda waxa ay leedahay maal sabool ayaynu ka nahay balse jaceylka ayaynu qani ka nahay Oska ayaa u soo diray sawir markii ay gaareen Mexico aabba iyo gabadhiisa oo wada nool haddana wada jir u dhintay Valeria hadalkeedii ugu horeeyay waxa uu ahaa aabbo 2 sano jir ayay ahaan lahayd bisha soo socota markii ay tageen Rosa cabsi ayaa gashay como le digo uno de madre hooyadu way dareemaysaa aad ayaan u ooyay markii uu imaxsalaameeyay sababtoo ah waxaan qalbiga ka dareemay inay tahay markii ugu dambeysay ee aan habsiinayo waxaan ku yiri aad ayaan ku jeclahay isna daryeel si lamid ah ayuu ugu yiri waxa uu yiri waxaan rabaa inaan caawiyo qoyska oo dhan hadduu eebbe idmana halka waan gaarayaa primero Dios que iba a pasar y que él quería fariintii ugu dambeysay subaxii sabtida ayuu ii soo diray waxa uu yiri aad ayaan ku jeclahay él falleció el waana fariintiisii ugu dambeysay inta uu dhiman ka hor mañana me mandó un mensaje Rosa waxa ay ka baryaysaa dadka in aysan tahriibin wiilkeedana sida ayay u bariday bueno mi mensaje sería de que fariintayda waxay tahay haraacin riyo ku dhamaanaysa geeri waan ogahay wax walba way adag yihiin balse noloshu waa muhiim dalkaaga joog aadna u dadaal difícil verdad por todo pero balse kuwa badan ayaa qoys jooga oo raba in ay ka tagaan xaafadaha sida tan Oska oo ay gacanta ku hayaan burcad dad badan oo kala jooga bartamaha Ameerika ayaa diyaar u ah in ay u bareeraan qatarta jirta si ay ku helaan nolosha cusub